waqtiga xisaab xirku wuxuu noqday mid culus oo stress badan gaar ahaan marka loo baahdo in la isku dubarido dhammaan dakhliga kharashaadka iyo in la sameeyo warbixino maaliyadeed oo sax ah Axmed oo wixii ku horeeyay 2023 isticmaali jiray hababka caadiga ah ee waraaqaha badan wuxuu si daran uga walwalsanaan jiray waqtiga badan ee uu ku bixin doono howlahaas iyadoo ay suurtagalnimada inuu khaladaad xisaabeed dhacana ay badneed taasoo dib u dhac u keeni jirtay howlaha kale ee muhiimka u ah ganacsigiisa bilowgii 2024 Axmed waxaa soo gaaray warkii ugu farxadda badnaa oo ahaa in xisaabaadka ganacsigiisa uu ku maamulan karo Kiyaas oo ah software xisaabeed casri ah oo loogu talagalay ganacsatada leh ganacsiyada waaweyn iyo kuwa dhexe Axmed wuxuu go'aansaday inuu tijaabiyo xalkan Kiyaas wuxuu fududeeyaa maamulka alaabaha ganacsiga iyo xisaabaadka wuxuuna ganacsatada ka caawiyaa xisaab xirka sanad kadib Axmed wuxuu awood u yeeshay inuu si sahlan u helo xogta maaliyadeed ee ganacsigiisa isagoo maanta ku socda wadada guusha ganacsigiisana u maamula si hufan Axmed waqtigiisu wuxuu noqday mid waxtar leh oo waxyaabo badan ku qabsan karo hadda xisaab xirku ma ahan wax adag